وحققت diyaaradaha ay caasimada jamhuuriyadda jabuuti ku qaabilay kuna soo dhaweeyay waftiga ballaaran ee uu hogaaminayo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Bihi Cabdi wasiirka wasaaradda biyaha beeraha xanaanada xoolaha iyo kalluumaysiga ee dalka Jabuuti iyo mas'uuliyiin kala duwan oo kamid ah xukuumaddaasi markii madaxweynuhu ka soo degay diyaaradda sida waxa lagu maamusay oo loo dhigay rooga midabka caasimada dheeran ee dunidu u gaar yeeshay soo dhaweynta madaxda iyo hogaamiyaasha waxaana uu madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland oo salaan sharaf ka qaatay cutub ka tirsan ciidamada jamhuuriyadda Jabuuti intaasi kadib waxa uu madaxweynuhu qadar nasasho qolka VIP-da ee marti sharafta kula yeeshay mas'uuliyiinta soo dhaweeyay madaxweynaha waxa loo galbiyay dhinaca qasriga madaxtooyada jamhuuriyadda Jabuuti waxaana halkaasi ku soo dhaweeyay madaxweynaha jamhuuriyadda Jabuuti mudane Ismaaciil Cumar Geele labada madaxweyne ayaa kulan muhiim oo ay ku wada qaateen qasriga madaxtooyada jamhuuriyadda Jabuuti waxa ay kaga wada hadleen danaha labada dal adkeynta xiriirka soo jireenka ee ka dhaxeeya Soomaaliland iyo jamhuuriyadda Jabuuti iyo soo socodka arrimaha bulshada waxa kale kulankaasi lagu soo qaaday ay wada yeesheen madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Bihi Cabdi iyo Jabuuti mudane Ismaaciil Cumar Geele sidoo horeba ay labada dhinac iskaga kaashan jireen ka warhaynta iyo la socodka arrimaha nabadgelyada mandaqada waana kulankaasi labada madaxweyne ku weerinayay intii uu socday wasiirada wasaaradaha arrimaha dibadda iyo Jabuuti mudane Yaasiin Xaji Maxamuud Xiir Faraton mudane Maxamuud Cali Yuusuf iyo mudane Maxamed Axmed Cawaale Maxamed Soomaali wasiirka biyaha beeraha xanaanada xoolaha iyo kalluumaysiga ee Jabuuti ay wehelinayeen labada safiir ee Soomaaliland iyo Jabuuti safarka shaqo ee madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Bihi Cabdi iyo waftiga uu hogaaminayo ay ku joogaan dalka Jabuuti ayaa qaadan doona maalmo Axmed Saki Daahir Xasan warbaahinta qaranka